بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta u dhoofiyaa waddanka Itoobiya aan hawl shaqo u aadayo ka bacdina waxaan ka sii aadayaa waddanka Ingiriiska oo shir muhiim ah oo ku saabsan maalgelinta Afrika oo wadamo badan ka soo qaybgalayaan madaxweynayaal badan ka soo qaybgalayaan gaar ahaan wadamada aanu isku isdawasha ka nahay sida waddanka Uganda madaxweynaha Museveni madaxweynaha waddanka Rwanda iyo Tanzania iyo Ghana marka barnaamijkaas ku saabsan yahay maalgelinta Afrika waxaa marka farxad inoo ah in Soomaaliya cid kale oo qayb galayso martaqaan ay tahay Puntland muhiim buu noo yahay maadaama aanu ku dhawaaqnay Puntland inay u furan tahay ganacsi iyo maalgelin marka in hay'adaha iyo wadamada imaanaya shirkaasi maalgashiga Afrika in aanu ka qayb galno Puntland iibino doorka ay ka leedahay Soomaaliya iyo muhiimadda ay u leedahay mantiqada aanu geyno fartinteedu ay gaarto way muhiimadda shirkaasi ka bacdina waan soo laaban doonaa hadii Ilaahay yiraahdo horumar badan ayaanu rajaynaynaa insha Allah inaanu ku talaabsano bilowgeediina ifafaalayaal badan oo socda iyo mashaariic badan waddanka socda wada socotaan bay tahay waa si xoojinaynaa waxaan rajaynaynaa waddanka wajigiisu isbedel dhab ah inuu ka muuqdo ilaahay idinkii waan rajaynaynaa inuu guul ay ku soo dhamaan doonaan safarkayga Itoobiya iyo kan Ingiriiska labadaba aad waa mahadsantahay